بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بعثه الله بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإن ربهم ويهديهم إلى الصراط المستقيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون متاع الجنة. waxaan mahad ballaaran u soo jeedinayaa dhammaan xubnaha iyo marti sharafta nagala soo qayb galay maanta kulankeena iskugu nimid wuxuu ku saabsan yahay waad aragtaa mushkiladaha maanta Soomaaliya ka taagan haday noqon lahayd dhankaas marka ka fiiriso qofka banaadinka wuxuu noqday wax aan qiimo lahayn oo mataqaana iyadoo loogu adeegsanayo magac diineed taasna waa mid aan diinta waafaqsanayn. marka barnaamijkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay waa tii dawladda ay codsi dalabtay ee leedahay waxaan u baahanahay ciidamo shisheeye in loo keeno. marka ciidamada shisheeye oo la keenayo diinta maxay ka qabtaa kulli maanta Soomaaliya ka taagan waa mid aan wada aragno oo cid kasta ay saameysay aan loo naxin qof bini'aadama hadduu masaajid ku jiro iyo hadduuna ku jirin ayna haba yaraatay loo abayeelin. had iyo jeer laba qof markay isqabtaan ama laba kooxood had iyo jeerna Caliya Garle Muusa Garle ma soconayso. diintu waxay qabtaa in la cadeeyo oo la yiraahdo yaa gardaran qolada gardaran in la yiraahdo gardarada jahdiidina lagu soo loogooda jeesto oo la yiraahdo hadii saas tahay waa la dagaalamaya ilaa aad gardarada ka joojisaan. laakiin maanta Soomaaliya waxa meeshan soo gaarsiiyay waxa waa Caliya Garle iyo Muusa Garle ama koox kale oo barbar socota ee oranayso والله ما أنتم حتاجنت أرنتي اللي قاموس أفكار جوغ قبي أسرع أرنت أصلا مركب بل أنا برنامجي أنا مدو حنصوب لون أري موضوع عسكو سابسن مركب exactly ما أنت برنامج كنا أنا ما أنت ماشى أفرد إنه وحكوا سابسن هي عيد ماذا لكن عيد ماذا الدولة دلبتي عيد ماذا يهرو جو وعنديس كها جوتان كود الدين تمحك قبتها لكن وحا ما أنت نرجو نسيب هناك nin ciidamadii oo Soomaalida militariga ahaa oo laga diray Soomaaliya oo loo diray Uganda waa ay sidaan oo kala qabsatay oo jabhada ku soo duuleen ayaa ciidamada Soomaaliya peacekeepers inta laga diray oo waxa laga diray Soomaaliya oo loo diray Uganda waana soo islaahiyeen ninkii raacay oo ciidamadaasi kamid ahaa saraakiisha ahaa raacay oo xaggaas tagay oo operation-nada xagga soo xaliyay nabad keenay soo noqday ayaa maanta nala joogo marqaati ah maanta ciidamada Ugandaiska ay noo soo direen abaal gud bayba noogu soo direen bacdama dhibaato xun soo martay ee soo arkeen in ayagana ay noo abaal gudaan oo maanta ciidamada soo direen markaas waliba xusho mar hadda sheekaysan wuxuu leeyahay iska daa wali markii madeen waxay sameeyeen cusbitaallo iyo dawooyin oo ciidamada kale oo barbar socda ayna keenin sababtoo waxay dareemayaan dad meel tababar lagu soo wada siiyay oo isla ay dareemayaan soo baxay golaha culimada iyo aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee qurba jooga bayanka ujeedadiisu waxay tahay in dalka Soomaaliyeed lagu soo dabaalo nabad waarta lagana badbaadiyo dagaaladii burburkii saameeyay muddo كودو 25 سنة كل سنة ربع قرني بيان كان wuxuu ka kooban yahay ilaa 12 qodob qodobka ugu horeeya wuxuu ku saabsan yahay koow islaamka wuxuu ogol yahay in dawlad islaam ah ay xiriir iskaashi la samayso dawlad aan islaam ahayn xiriirkaas oo ah mid siyaasadeed mid dhaqaale mid waxbarasho iyo mid military intaba anagoo taa ka shidaal qaadanayno nabigeena kaleey salaatu wasalaam taxalufkii uu la sameeyay reer bani Quzaaca oo markaa ahaa gaalo ayna mowqif iskaga soo wada jeedeen oo ka soo horjeeda Quraysh qodobka labaad golaha culimada iyo aqoon-yahanada Soomaaliyeed qurba jooga waxay taageerayaan dalabkii ka yimid dawladda Soomaalida ee ka dalbanaya adduunka inay ciidamo la soo gaaraan
si ay uga saaraan qolooyinkan argagixisada ah ay soo geliyeen gudaha dalka u soo geliyeen kooxo nabadiid ah. qodobka saddexaad waxaanu ugu baaqaynaa firqooyinka nabadiidka ah had iyo jeer waxaanu culays ka saarnaa laftigooda bal inay waanada dhigta ay ugu dhacdo. waxaanu ugu baaqaynaa qolooyinka nabadiidka ah inay ka waantoobaan wadada shaydaanka ay raacaan wadada eebe. qodobka saddexaad waxaanu ugu baaqaynaa firqooyinka nabadiidka ah had iyo jeer waxaanu culays ka saarnaa laftigooda bal inay waanada dhigta ay ugu dhacdo. waxaanu ugu baaqaynaa qolooyinka nabadiidka ah inay ka waantoobaan wadada shaydaanka ay raacaan wadada eebe ayna ka qayb qaataan dib u heshiisiinta Soomaaliyeed. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi wactasimuu bixabli illaahi jamiican. qodobka afraad islaamku wuxuu waajib nooga dhigay in aanu ku midowno diinta alle kana hortagno firqooyinka nabadiidka ah oo baaqooda uu yahay dagaal baa dan noogu jirtaa. ilaahay subxaanahu wa tacaalaana wuxuu leeyahay wasulxu khayrun war wanaagga iyo heshiiskuna khayr ku jiraa. 6 ummadda Soomaaliyeed waxaanu ugu baaqaynaa si ay uga gudbaan marxaladan adag inay iscafiyaan iskana iloobaan dhibaatooyinka isu geysteen eena ka qayb qaataan heshiisiinta waddankeena. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. 7 waxaanu shaki ku jirin inaan lasku waafaqsan yahay in ciidamada shisheeye ay dalka ka baxaan ayna soo jeediyeen culimo ku shirtay xamar ay leeyihiin waa inay ciidamada shisheeye uga baxaan 120 maalmood gudahood. taasi mid shareecada waafaqsan maaha bacdamaa dowladda Soomaaliyeed ay tahay ulul amriga ayadana ka go'daa inay ciidamadaas bixiyaan iyo ciidamada inay joogaan ayada ka go'daa. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay yaa ayyuhalladhiina aamanuu atiicu allaha wa atiicu rasuula wa ulil amri minkum. 8 wadaadada qaarkood waxay ku dhawaaqeen qodobka 8aad farqadiisa 2 in ay ka soo horjeedo shareecada islaamka waa dastuurka markaas. hase yeeshee qodobkaasi mid diinta ka soo horjeeda maaha. qodobka uu leeyahay shareecada islaamka ayaa saldhig u ah shuruucda qaranka. qodobkaas meel loo leeyahay ma jirto. nabigeena wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam inna diina yusrun walan yushaadda diina axadun ilaa ghalaba. 8 shareecada islaamka waxay xaaraantinimeynaysaa wixii keeni karo xasilooni darro loo geysanayo ummadda Soomaaliyeed. nabigeena wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam lacana allahu man rawaca musliman. 9 islaamka wuxuu xaaraantinimeynayaa tuurista hubka iyo gantaalada la tuurayo ayna ku dhacayaan meel aan la ogeyn taas oo ay dhibaato u geysanayso oo dhimasho iyo dhaawac maatida Soomaaliyeed. nabigeena wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam la zawaalu dunya ahwanu cinda allahi min qatl almuslim. 10 golaha culimadii aqoonyahanada Soomaaliyeed ee qurba jooga ah wuxuu cadeynayaa kadib markii darseen dastuurka federaalka Soomaaliyeed in uu waafaqsan yahay shareecada islaamka maadaama aysan wax xaraan ah aysan xalaal ka dhigaynin ama wax xalaal ah aysan xaraan ka dhigaynin. ilaahay wuxuu yiri subxaanahu wa tacaala khudul afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jaahiliin. adaba dastuurka wuxuu noo soo hosgaliyaa curfiga bacdama ay aad saas leedahay. 11 dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee ku sugan dalka gudihiisa iyo dibadiisa waxaanu ugu baaqaynaa in ay raacaan
baaqa culimada iyo aqoon-yahanada Soomaaliya qurba jooga bacdama ay culimada ay yihiin maanka iyo maskaxda ummadda Soomaaliyeed. إلهي سبحانه وتعالى وحيري فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لبيتون قولها علماء يا أقوياء الصومالي يا قرب الجوجا وحو كباقيا الصومالي إن إتاجران دولة دودا سي الله حلو أبني استقرار لو نقار برواقو يبشبش. إلهي سبحانه وتعالى وحوليه ولا تنازعوا فتفشلوا وتبحكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.